بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا شرفت لك كلنتي وناكسن وعن جمعة وناكسن عاو waxaan u ballansanay arooskii Faarax iyo Xaliimo saan hore u soo sheegnay shukaansigii Faarax iyo Xaliimo khaladaad badan ayuu yeeshay si kastaba ha ahaatee wuxuu dhaawac soo noqday wuxuu soo jiitamo mararka qaarkood waxa dhacday inay ku guuleystaan inay is aroosaan habeenka is aroosay walaalayaal marka koowaad sheekh ayaa loo yeertaa hadalka Ilaahay iyo kalaamka Ilaahay ayaa la isku xalaashadaa wixii inta ka dambeeyana qof walba wixii asaga u arka ayuu banaada ka sameeyaa maanta waxaan rabaa inaan wax yar ka eego qaladaadka ay suubiyaan dadka Soomaalida ah is aroosa walaalayaal horta anaga haddaan muslim nahay qofku waxa fiican markuu guri aasaasay ama reer dhisayo inuu xalaal ku aasaaso wax badanna suubiyo marka waxaan ka hadlayaa qaladaadka dadka suubiyaan waxaa runtii aad iyo aadna u soo batay oo caadi noqotay in mataqaana dhaqanka gaalada la qaato waa marka koowaad faraanta ayaa la isu geliyaa Faarax iyo Xaliimo faraanta isu gelinaya cajiib marka waa wali xataa waxa lagu tuuraa muusiga Faarax la isu gelinaya Faarax iyo Xaliimo kow horta gaale uga daydeen kaas la isu geliyay faraantiga markii la isu geliyo waxaa la siisiyaa cake Faarax iyo Xaliimo ya Xaliimana xafkii u gelinaysa qaarna waxaa aragnayba qaar xataa is dhunkaday inta kadib walaalayaal waxaa la suubiyaa Faarax iyo Xaliimo waxa way gacanta saas isu dhaafsanayaan biyaa la saas la isu siinayaa waa bidixda lagu cabayaa xataa saas dhac wala cabayaa bismillah inta marka la suubiyo waxa la tumayaa muusiga ayaa la tumayaa waa la ciyaarayaa waa la boodboodayaa kharash fara badan ayaa halka ku baxaya wuxuusan Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ahayn ayaa ka dhacaya halka qaladaadka faraha badan markay yimaadaan walaalayaal waxay keenaysaa in labada qof ay marka koowaad ay gurigooda ku aasaasaan waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala raali ka ahayn labada qof is aroosaysa walaalayaal khaladka kaligood ma lahan dadkana khaladka way leeyihiin qofku bini aadankan uu khaldami karaa sidiisaba qof bini aadan oo macsuum ah ma jiro walaalayaal qofka bini aadanka uu khaldamaya uu nagafayaa laakiin walaalahiga waxaan ku baaqayaa dhammaan meel kasta ay joogaan in Ilaahay subhanahu wa ta'ala u toobad keenaan oo markasta wanaaga fiiriyaan oo ay gurigooda iyo noloshooda koowaad wax walba isla soo maraan ay khayr ku bilaabaan midda kale walaalayaal waxa loo baahan yahay dhaqaalaha iyo kharashka aad ku bixinaysan waxan inaad wax fiican ku isticmaashaan runtii qisooyinka ama xaqiiqooyinka jira markaa maqashid waad naxaysaa waxaad maqlaysaa dad aroos ah oo maanta is aroosay arooskooda ay ku baxday intaasoo 100,000 laba maalin kadib madaxa xoqanaya oo bilkii la laasan yahay kuwa deyn lagu leeyahay kuwa deyntii lagu lahaa darteed u kala tago u burburay marka waxaan dhammaan ugu baaqayaa walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan haddii aad isguursateen oo aad mataqaanaa khalad isku guursateen oo ficilada aan soo sheegnay dhan aad samayseen horta marka koowaade wanaag ku bedela haddaad wanaag ku bedeshaan Ilaahay xumaantiin iyo khaladkii naga dhacay Ilaahay wanaag ayuu nagu bedelayaa Ilaahay waa Ghafuurur Rahiim adoomadiisa wuxuu rabaa inuu mataqaana mar walba soo dhaweeyo oo u dambi dhaafo waxaan leeyahay walaalayaal hal isu dulqaato oo marka aad ka soo baxdaan marxaladan adag u dulqaata waxaan kaloo baaq u diray dhammaan dadka ahelka u ah ama qaraabada ama asxaabta ah ee ka qayb galaya aroosyada noocaas oo kala waxaan leeyahay dadkiina la taliya si fiican wax ugu sheega waxaan kaloo ognahay in arooska marka koowaad uu xalaal ku bilowdo saqda dhaxana uu xaraan noqdo shakadaas waa shaka dhacday islaamaha markii buraamburka dhameeyaan oo la dhaho war wiilku waa ree hebel cabdiyo Faarax oo marka la dhameeyo waxa lagu tuuranayaa alaab kale ayaa lagu tuuranayaa mas'uuliyadan waxa iska leh labada qof ay is aroosaysa ayaa iska leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan u weydiinay ummadda Soomaaliyeed inuu ilaaliyo wanaaga waafajiyo xumaanta ka ilaaliyo inuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala ummadda dambi dhaafo lamaanaha isqaba Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu isu barakeeyo awlaad khayr qabta kala siiyo qalbigooda isu dajiyo xalqada ku xigta insha Allah ta'ala waxaan uga hadli doonaa marka la is aroos kadib nolosha bilaaban doonta iyo sida ay u dhici doonto iyo waxyaalaha waajibaadka la isku leeyahay iyo mowduuc muhiim ah qof aadan jeclayn nolol ma la wadaagi kartaa xasuusnaada in like sartaan page-kayga Nasir Cadayd isla markaana rugteeda YouTube-ka subscribe sartaan assalamu alaykum wa rahmatullahi